لو ميسي كلاته انت في بدل ميسي هذا ولا قبل هذا كان لكن ميسي قال بقى انا ميسي لو تشي laga min weyso waa in diidaan ugu hadda furna sifay ku diidi karaan mijan sida kale ay ku diidi karaan waxa way codkooda in aan nafsan axmed cawke waxaan ka wadaa axmed hegan dadka qaarkood dad badan baa waxay leeyihiin doorashadu markay dhacdo oo fala doorto dadku waxay aaminsan yihiin hadday doorasho xalaala dhacdo dadku way yaqaanaan ciday dooranayaan etoobiyana gumaysi markaa ma noqonaysa waxay noqonaysaa dowlad dimuqraadi ah laakiin sida laysugu qasbayo xisbigan cusub ee laysugu yeerinayo ee dhulkii iyo xuquuqdii shucuubta sida duuduubka loogu qaadanayo dad badan baa waxay aaminsan yihiin inaan wax doorashaa dhacayn doorashaduna barnaamijkeedu yahay barnaamij dhammaaday ee barnaamijkan xisbigan e b b da uun si qasaba lagu keenayo oo siyaasad iyo ajendayaal guracan oo qowmiyadaha etoobiya oo dhan ayna rabin laakiin dabada ay ka wadaan qowmiyado gaar ah iyo wadamo dabada ka riixayo raba khayraadka etoobiya ku jira deegaankaas inay boobaan marka seed u aragtaa dadka qaarka inay aaminsan yihiinba doorasho inay dhacayn adu ma aaminsantahay inay doorasho dhacayso waad mahadsan tahay khaliifow way dhici kartaa inayna etoobiya sidii looga bartay ayna doorasho dhicin etoobiya doorasho xor iyo xalaala oo maxay ahayd cidku codka shacabku say rabaan loogu tartamo loogama baranin weligeed kamana soo dhicin wayna dhici kartaa inay wadadii qaada laakiin mid in lagu xisaabtamaa muhiima etoobiyadii shalay wada socotay ma aha qowmiyad bay u kala fadhidaa qowmiyad kasta inay wax iska celin karto way aragtay 2 sano ka hor bay ahayd markuu gudoomiyaha hadda ururka ONLF oo xilliga ahaa hogaanka arrimaha dibadda markuu kala ahaa aljazeera qaybta ingiliishka uu kala ahaa Ethiopia way karkaraysaa karkarkii uu dhab u noqday way karkarto way xukunkii bay ku waayeen raggii ugu jeclaa xukun 25 sano soo haystay waxaan aaminsanahay Ethiopia rajada kaliya ay leedahay waxa weeye in maxay ahayd doorasho dhacday haday doorasho dhici weydo nin walba kildigiisa yar buu marka hore magac bay kildi uga dhigeen nin walba kildigiisa yar buu qalaasa ka furi waana lagu kala tagayaa Oromo oo xukunka hadda hoosaan haysaan ogolayn in doorasho la'aan meesha la sii joogo marka waxaan aaminsanahay Ethiopia inay doorasho dhacday inay dan ugu jirto haday dhici weydana awood qaybsi inuu yimaado xisbiyadii hadda aan kala haynin awoodda wax laga siiyay inay dan ku jirto haday labada in weydana nin maxay karis xun isaga iyadana ku kala laba la yiri ninkii Ethiopia iyadana ku dawlad la shacabkan hadda wuu fahmay in la iscaburin karo waxaan uga gudbaynaa qodobka isaga ee maaragtay xisbigii SPD iyo isbedelka ka dhacay dowlad deegaanka iyo xisbiga inuu ku buuray EPP qodob doodeed kaleeto oo ah doorashadii ONLF kadib iyo tan iyo markii taageerayaasha iyo xubnaha ONLF ay dib dalka ugu noqdeen waxa doorashadu dhacday kadib waxaa jira bulaan baraha bulshada la isla dhex marayo taasoo la isku dayay shacabkii wada halgamayay naf iyo maalba soo wada huray in lagu kala qaybiyo qaab beela in maaragtay doorashadii aynu ogeyn sida xalaasha u dhacday dadkoo dhan wada arkayeen live-ka ahaa qof iyo codka ahaa qof cawday oo yiri waa la khiyaamay ama doorashada waxba la iska kaydiyo mari aynaan maqlaynin in haddana ay maaragtay aan dad badan oo jira yani sidii la rabay aan jirin marka maxaa sabab u ah bulaanka shacabkii Soomaaliyeed ee xornimadoonka maanta waxa la rabay inay dhinac u wada socdaan inay cududoodii aqligooda mideeyaan in gudoomiyaha cusub ee la doortay ay garab istaagaan oo hiiri hoob la garab istaagaan marka Axmed Heegan adaan ku weydiinayaa maxay kula tahay sababta yani keenaysa bulaankan iyo qabyaalada shacabkii qabiil wuxuu yahay soo arkay soo wada halgamay muddada dheeraan ee gumaysu ka soo daalay in maanta ay qabiil u noqdaan maxaa sabab u ah walaal horta mid baa jirto oo arin wax waa la sii buunbuuninaya social media iyo Facebook iyo aaladii looga faa'iideysan lahaa in wanaaga lagu faafiyo baa waxa lagu faafinayaa dadkii nin walba suu jecel yahay wuxuu qorayaa dadkuna khiyaar ma wada ah midda labaad ee jirta waxa weeye xukunkan hadda deegaanka haysta baynu dabeecadiisa garanaynaa xukun ay ugu badiso arintaas ah faafinayo dhaqaale ku bixinaya in xumaanta iyo bahashan inay bulaasho oy dheregto oy cayisho qabyaaladu waxay ku cayishaa waad garanaysaan oo in xaabada dabka lagu shido marka waxaan isleeyahay
social media oo iska noqday nooc maxay ahayday xumaanta iyo samaanta xumaanta laga jecel yahay xisbi deegaanka xisbiga hadda deegaanka haysto oo u arka oona laf inay khatar jirta tahay oo kursiga weydaarinayso oo furaya mawjada lacaga ku bixinaya arrintan in la buunbuuniyo baa jirta laakiin xubnaha rasmiga ee ururka iyo shacabku waxay rabaan marka ay soo baxayaan ee waftidu ururku marayo ee ay maxay ahayday qiiraysan yihiin markaasa lagu mateli karaa marka wax qabiil hadda aynu usii saarna male waxaan iska soo dhammaanayaa intan xukunkii ololihii iyo doorashadu jirta weeye laakiin wax sal amaha shakhsiyaad baa buufinaya anigan hadda heegana oo kula hadlaya baa waxaan samayn karaa 100 magacoo midna geel laaye yahay midna booda yahay midna fadhi xumo yahay midna taagni orda yahay oo wada magac jin aho oo 10 ah oon rabo qandaraas aan ku qaatay inaan ku suuq geliyo marka lama dhihi karo waxyaabahan socda ee social media ka socda waa wax dhab ah oo shacabka matalaadiisa hadduu jirana waa 1% wax ka siiya waxa 1% gaaba 10% iska dhigayo magacyada baxaya shakhsiyaadkana weyn ognahay meesha ka shidal qaataan cidda macalinka oo ku takhasustay arrintan waxaana uu iska soo afjarmayaa waqti kooban aan fikirkayga waan ka baxay cawke doorashadii waxaan ka hadlaynaa subjectiga ONLF doorashadii kadib taageerayaasha iyo xubnaha iyo maaragtay khilaafyo yaryar oo dadka qaarkood ay baraha bulshada wareejinayaan sida qabyaalada camal doorasho walba oo dhacda waxaa loogayahay dadka tartamaya inay isqabtaan oo midba midka kale inuu isagu ka fiican yahay oo isagu ka saxan yahay oo masaalixii dalka yahay waa wax rabaani oo caadi ah ma jirto dad doorasho wada galay oon fikirka isku qabanin oon ku kala duwanaanin oon tartamin qabiil iyo wax walba way gashaa waa loogayahay laakiin haddana waxaa caado ah meel markay doorasho ka dhacdo ee doorashadu dhammaato si walba wax qalada u dhacay qof la doorto in haddii dantii waxaas la wada jecel yahay in doorashadii markii laga gudbo ee hawshaa laga gudbo oo si wada jira looga shaqeeyo dantii guud iyo midnimadii iyo yoolkii ururka ama xisbigaas uu u taagnaa taageerayaashii xubnaha ONLF ma moodaa inay qaarkood weli sida jawigii doorashada ku jiraan oo guddoomiyihii la doortay aynan sidii la rabay doorashadii waqtigeedii waa dhammaaday codkii wuu dhacay ma jiro musharax leh codkii baa laga qaatay oo laga shubtay oo Facebook soo taagan ama press release soo saaray wuu ku qancay doorashadii waa la isgacan qaaday marka soo ma habboonayn in bulshadii markaa ay u istaagto guddoomiyaha cusub ee la doortay in garabka laga qabto wixii tala iyo xooga lagu kaalmeeyo la adeeco sidii diinteenuna furaysana waxaa leeyahay adiicu llah wa adiicu rasuula walul amri minkum ilaahay adeeco rasuulkiisa adeec markaas seed u aragtaa cawka in weli dadka qaarkood sida jawigii doorashada weli ku jiraan oo bulaan abuurayaan maxaa faa'iido ugu jira bulshada nihow khaliifow horta mawduucan dadka abuurahaya runtii waa dad ka cadilfado yar oo tiraahaya iyo dadaan ururkaba taageerayaashiisa midaan ahayn bulaanka ugu badan hadda ka wada codka uu yaro gogo'aya cawke u dhowow microfonka dadkan waxay u badan yihiin 90% adiga waxay u badan yihiin dad aan ururka banaanka ka ama hore uga tirsanaan jireen ama maxaan ku dhahaa haddaba ha ka baxaan oo maxaan ku dhahaa yeen ahaanba weligood bayaan soo marin waxay badan yihiin bal inuu dhaama ma isku dayaya okay baa tacawka waxay u badan yihiin marka hadda codkayga soo kayma okay marka horta dadkan inta badan bulaanka samaynaya dad ururka banaanka ka awayaan way jiri kartaa dabcan guddoomiyaha dad aan weli siyaasad ahaan ugu qanacsanayn in ururka ku dhex jiri karaan waa laga yaabaa dad door bidahaya asagaba inuusan soo bixin baa jira oo hadda markii la fiiriyo ergadii u codeynaysay 45% umayna codeyn asaga oo macnihii ninka ka soo horjeeday bay u codeeyeen dad badan oo asaga maxaan ku dhahaa taageersan bay dadkii u badnaadeen laakiin 90% dadkii doortay iyo dadkaan dooraninba waxay u badan yihiin dadku inay taageersan yihiin inuu ku soo baxay cod si xalaal ah oo doorasho cad oo dadku ay arkayeen
marka hadda waxaa loo baahan yahay nidaamka hadda cusub ee la doortay maaday uu hogaaminayo asaga laftiisa ayay mas-uuliyad dhab ay ka saaran tahay inuu ururka mideeyo waayo dadkii doortay iyo dadkii aan dooraninba asaga guddoomiye u ah bal ee dadkii aan meesha imaninba guddoomiye u yahay oo shacabkii annaga oo aanan imaninba hadda guddoomiye noo yahay intii dooratay iska dhaaf iyo intaan dooraninba waxaa loo baahan yahay inuu ururka dhibaato soo maray dagaal buu soo maray khilaafyo baa jiray khilaafyaha weli jiri kara guddoomiyaha ONLF cabdiraxmaan sheekh maxamed maaday waxaa u yaala hawl adag oo ah inuu ururka mideeyo ma ahan inuu dad cadiifadaysan si gaara daday saaxiibo u yihiin dadkii gruubka ahaa isaga shalay u ololeynayay inuu isku xayndaabo lama baahno xaqada dhabta ee taala markii la isu sheegayo waxayaan guddoomiye cabdiraxmaan waxaa loo baahan yahay inuu mideeyo ururka iyo shacabka ummadda Soomaaliyeed inuu mideeyo loo baahan yahay inuu dadku isu keeno waana sida kali ah ee khilaafkan hadda jira iyo bulaanka dadka shacabka dhexdiisa gudihiisa ka jira ay ku bogsoon karaan markii intaas la keeno waxaan leeyahay kulleyba aniga laftayda waa rajaan ka qabaa inay sidaas dhici doonto khilaafkan hadda inta badan social media inta badan ka muuqdana dad ururka banaanka ka abaa yaa wada sidaan horeba kugu sheegay laakiin way dhici kartaa dad ururka ka tirsan oo weli saluug qaba ama qaabka hadda durba hawsha u bilaabatay inay saluug qabaan jira way dhici karaan ama qaabkay wax u dhacaanba inay saluug ka qabaan suurtagala laakiin boqolkiiba 90 ururku wuu ku midaysan yahay inuu cabdiraxmaan mahdi si xalaal ah oo nadiif ah lagu soo doorsaday mudane axmed heegan su-aashii cawko su-aashii iga hor su-aashii buu soo hormarsaday aan gadaal u dhiganaya ahayd akhirka in maaragtay maaday howlaha hor yaalay laga rabo inuu ku dhaqaaqo si ONLF xubnaheedii iyo taageerayaasheedii iyo midnimadeedii iyo waxqabadkeedii loo soo celiyo taasoo muhiim u ah bulshadii laakiin su-aal kale aan ku weydiinaya heegan يعني dad badan oo waxaa jira qaarkood taageerayaal qaarkood oo aaminsan guddoomiyahan rabo hadduu iman waayo ha burburto dadka noocaas aqliyada noocaas maxaa ka dambeeya yani dadku hadday wax aaminsan yihiin oo dhiiggaad aragtay soo galiyeen oo lacagtaas aragtay soo galiyeen xataa marmarka qaarkood wuu imanaya qof aadan jeclayn inuu xukunka yimaado laakiin haddana waxaa jirta muddo kadib oo qofkaas doorasho labaad la geli doono marka meesha isu diyaarin lahaayeen doorashadaas qadiyadoodii iyo xisbigoodiina qofkeena jeclayn ee la doortay ay u hoggaansami lahaayeen sida caadada ah ee adduunka oo dhanba ka dhacda in shacabka ONLF qaarkood ay aaminaanba maaday baa yimid marka ONLF way burburtay yani caqliyadda noocaas qofka isaga ma wuxuu rabaa aniga keliya markaan guddoomiye noqdo baa ONLF jirtaa caqliyadda noocaas ka dambaysa maxay tahay waad mahadsan tahay khaliifow labaan u kala qaadaynaa dadka nooca aaminsan hadday markii dagaalku socday ay dad taageero bixiyo ururka ku dhex jiro shaqo qabto taageero ahayeenna gumaysigay necbaayeen oo dad gumaysi necab bay ahaayeen laakiin dad ururnimadu soshay oo ururnimada wax ka fahamsan ma ahayn shakhsiga ururkiihi waa bisaylka ururnimo ay dhug tiraahdo wuxuu mar walba ku qanacsan yahay codku meeshuu maro haddii adiga oo god lagu riday ururka codka lagaaga badiyo waa si walba u qaraadhahay waa inaad codkaa ku qanacsanaataa waxaan dhihi karnaa laba midub bay noqon inay dadkaasi dadka gumaysi nacaba ururnimada aan ku bislayn xubno urur oo kuman ahayn yihiin iyo inay dee ururka banaanka yihiin ay iska dhigayaan dad urur ku jira waxaan aqaanaa anigu hadda 10 ilaa dhowr iyo 10 shakhsi ka badan oo 20 iyo 30 kor u dhaafaysa oo saaxiibada aan soo wada shaqayn jirnay xilligu ururka ka baxay mas'uuliyiin qaar iga xil sare mar anjaliyada wada qabanay iga mas'uuliyiin amro iga sareeya ahaayeen qaar aan isku shaqada guddi wada haynay oo hadda maanta ururkii aan qayb ka ahayn oo xilligu markaa adkaatay ururka ka baxay maantana la soo taagan ONLF baan ahay xumaanta ugu badan social media ka wada marka shakhsiyaadkaas oo kale lama dhihi karo urur waa dadka tarankana xale ee waxa markay ka baxaan haddii wixii ay ka tageen oo yara bulaalsan oo wanaag ku socdo oo wada fiican haysta ay arkaan ka naxa iskuna daya inay wixii burburiyaan marka taa lama dhihi karo urur xubnaha quman ee ururku siday doorashada u dhacday xilligii doorashada socday wixii haddii wax dhex maray kadib doorashada kadib inay wada shaqeeyaan inay u guntadaan baa muhiima guddoomiyaha haddaan lala shaqaynina ma say keligii ma shaqaynaya isagana waxaa looga baahan yahay
in maxay ahayday uu la yimaado dadkan isaga maanta guddoomiye oo ah kii shalay aan dooranin kay dooda adag dhex martay kan maxay ahayday aan markii hore inuu xilka qaban karaba aaminsanin wixii oo dhan isaga guddoomiye ah inuu isku wado uu soo wada dhaweeyo tuso in maxay ahayday kalsoonidii xilligii doorashada kalsoonimadii dhacday inay baabaaday isagay waxaa hor yaalla gool qurux badan uu si qurux badan ugu dhalin karo si xun ugu dhalin karo marka waxaan ku waanin lahayn inuu dadkiisa isku wado oo maanta la yimaado bidhaantii hogaameed isaga taasaan kula talin lahaa ururkana ha loo fiirsado dadka waa inay shakhsiyaadka wax cabiraya ay kala og yihiin shakhsigan shalay hadduu xitaa oona la fahan jiray waddadii dheereed dhexdeeda muxuu noqday waxaan uga gudbaynaa qodobkeenan maanta ONLF inta barnaamij kale ka iman doono waxaan u gudbaynaa Faarax Macalin saad ogtiin siyaasiga reer Kenya ee ahaa gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka Kenya Faarax Macalin baryahan ugu dambeysaba wuxuu aad iyo aad baraha bulshada u soo dhigayay iyo baraha Twitter-ka oo ugu badnaayeen dhaliilo joogto ah iyo weerar uu ONLF ku dhaliilahayo oo uu ONLF maarad ku cambaaraynayo meelaha qaarkood wuxuu ku eedeeyay ONLF inay TPLF tala shaqaynayaan dowladda Soomaaliyeed ee cadow ku yihiin inay yihiin qabiil luqadaas ayuu adeegsaday mararka qaarkood dadku qaar way ku kala qaybsan yihiin aragti ahaan seed u aragtaan weerarka isaga ee Faarax Macalin ONLF uu ku hayo ma ONLF baa ku xadgudubtay siyaasiyaas caanka ah mise isaga ujeedada uu kaleeyahay maxay tahay dhaliilahaas joogtada ee ONLF ku hayo xawkii horta waxaa jira cudurdaaro fara badan oo loo samayn karo Faarax waxaa jira dagaalkii dheeraa ee 30 sano socday dagaal aad u kharaar buu ahaa siyaabo kala gedisan buu uga qayb qaatay Faarax Macalin wuu ku amaanan yahay aniguna waxaan aaminsanahay midda kali ah halganka iyo halgamaagu ay ku ixtiraamayaan inay midaas tahay weli laga gaabsanayo dad aan aqoon fara badan aan u lahayn oo iska yar wixiga ah waa laga yaabaa inay aad u durkayaan laakiin Faarax Macalin arintan uu ku khaldan yahay ururkan asagu taageero ayuu u ahaa member kama ahan madax kama ahan go'aamadiisa meesha lagu gaadhayo lagama maxaan ku dhahaa ma fadhiyo dad baa maamula dad baa loo soo doortay dad baa matala ururka iyo xubnihiisa go'aan bay gaadhayaan hadduu doono ha kharaaraado ama ha khaldanaado laakiin inuu asagu caytamo oo weliba hadda Faarax Macalin wareysiyadiisa hadda ugu dambeysay maynan ahayn dhaliil mayn ahayn urur ONLF iyo siyaasiga iyo ururka iyo waxa jira iyo madaxda waa la dhaliili karaa dadku waxay kala garan laayihiin dhaliisha iyo xadgudubka uu qofku uu sameeynayo oo asaga laftiisa ku soo noqonaysa shakhsigiisa inuu dhaho ka been sheego ururka siyaasadiisa asagoo ku dabaqahaya dad ay ONLF saaxiibo la tahay asaga laakiin ay siyaasadda col ku yihiin oo ama ha ahaado dadka deegaan ahaan ay meel Kenya North Eastern ay kasoo wada jeedaan ha noqoto ama dad siyaasadda geeska Afrika ay kasoo horjeedaan ha noqoto ONLF waa urur yani arrimihiisa dhan u madax banaan cidna kalama yani in looma yeeriyo in loo yeeriyana ma aha ONLF inay cid u yeerisa ma ahan madaxda waa madaxda doortay ururka xubnaha doortay waa la soo doortay waxaa loo doortay inay matalaan danaha iyo siyaasadda ururka ONLF meeshay geli karto ee laga soo bixin karo ee laga dhiraandhin karo inay galaan meeshay doonto ha noqoto laakiin asagu waxaad moodaa inuu ku dabaqaya marka dad siyaasiyiin oo Soomaali ah iyo dad siyaasiyiin oo kaleeto oo asaga ay iska soo horjeedaan oo ONLF ay la kulantay isagoo oo ka jawaabay inuu hadalla xadgudub oo ku hadlayo marka odayga waa la ixtiraamayaa halganka iyo halgamaagu ixtiraam bay u hayaan laakiin waxaa sharaf u ahayd inuu soo reebto soo reeba laga yaqaan gobolku ka soo joogay waxaan leenahay Faarax Macalin waa lagu ixtiraamayaa halganka iyo halgamaagu sharaf iyo magac fara badan bay ku hayaan afka iyaga iyo gacantanadu midna kuma qabato mana wax ka sheegi karo soo reebo soo reeban leenahay odayga Ahmed Hegan Faarax Macalin siyaasiga North Eastern Kenya runtii meelo badan ka hadlay waxaad moodaa
saxaafadda inuu marinayo dhaleecayn cambaarayn iyo weerar uu ku hayo jabhadda ONLF ee xaqudirarka ah ee shacabka Soomaaliyeed u halgamaysay muddada dheer maxaad is leedahay way daaran tahay fariintaas Faarax Macalin oo baraha bulshada marinayo ee qaarkood tahay eedaymo aan caddaymo wadanin siday ONLF inay TPLF iyadu iskaashi leeyihiin oo burburinayaan dowladdii Soomaaliyeed waxyaabo noocaas iyo ONLF inay qabiil tahay weli waagi hore uu dhihi jirin haddana uu leeyahay maxaa sabab u abaad isleedahay waad mahadsan tahay khaliifow faarax waa nin aan aad u jecel lahay waktigii adkaana codkiisa kaga qayb qaatay qadiyadan inuu ugu heeliyo isagoo gudoomiye ku-xigeena oo talk show hard talk barnaamij la odhan jiray laga wareysanayaan xusuustaa oo taariikhda halgankan iyo magacan iyo suu ku baxay iyo taariikhduu leeyahay mugweynideedii raadkii ururka inuu yahay ka hadlaya si adag nooga hadlaya isagoo marar badan TPLF iyo Malla Zanaawi iyo arrimihiisa ka hadlaya waxyaabo badan oo Faarax loogu dulqaadan oo xusuus ah oo xilligii adkaa ee nin walba oo mas'uuli uu gaban jiray inuu qadiyadan magaceeda sheegay buu ku jiray waan ku ixtiraamaynaa waanu ku jecelahay aad baanu u qadarinaynaa Faarax laakiin waxaad moodaa intii hadda muddadii ugu dambeysay ee qoladan nabad iyo nolol la dhahe farmaajo iyo xukunka yimaadeen qalbi dhagaxna la gacan geliyay la dhiibay intii ka dambeysay Faarax inuu wareysiyada uu bixinayo qaabka wax u dhigayo inay bataatanba sidii hore kasoo horjeedo ood moodo kow inuu magacii uu shalay isagu qirayo inuu magac taariikhi yahay maanta qabiil ku sheegayo oo moodo maxay ahayd ururkii qolyihii 27 sano soo dilayeen dhiigga shacabkeena qabay ee kumaanku wiil aan isu weynay inuu ururkii ku lambarinayo inay isku group yihiin waxyaabo noocaas oo munaasab ahayn oo shakhsigu markuu mas'uul heer ka gaaray uu yahay laga rabo inuu ka dhowrsado oo anshixiisa ku ilaashado inuu galgalayo oo moodo inay raadkiisa dib u tirtiraysa iyo jacaylkii iyo wanaagii loo hayay anu waxaan markan baaritaan ku sameeyay fiiriyay maxaa Faarax ku qasbaya waxaa ii soo baxday siyaasadda doorashada North Eastern oo dhowr mar ay saaxiibadiina ururka hadda u dhow oo guddiga wada hadalka ka mid ah dadka stakeholderka ee ururka siiya talooyinka ururka maxay ka ah lex jeclada inay qayb ka yihiin aaminsan inuu siyaasadda ku kala fog yihiin taa uu ku dabaqaya inuu ONLF uu dhaliilo iyo dacaayadi iyo waxaan qabanin hawada u mariyo waxaa ku soo biiray nimankaas madaxweynaha Jubbaland oo isaga laftigiisa ay aad xurguf xun uga dhaxayso oo labadooda dhaxmartay ahayna xurguf laga soo minguurinayo fila Soomaaliya ah waxyaabo badan oo noocaas ku dabaqaya marka anagu Faarax waxaan leenahay waan ku jecelahay mas'uul baad noo ahayd waxyaabo badan oo abaal aan ku haynaa qadiyadana waad leedahay marka xaqiiqda laga hadlo lagama leh siduu saaxiibka uu ku sheegay soo reebo raadkaagii dib ha ugu tirtirin bil iyo labo wax la soo har munaasabna maaha wuxuu hadda saxaafadda marinaya waad mahadsantahay intaa ma dhaafayaan